هلا أصحابي كسر وهذا جنال كي وأنا وشعب درساق نورة جنال كذا كده وأنا إنسان وشعب نورة وده كان الإنجليز كوحكي على قصة وحنون بدن أو كل على فاميلي شكري عبدي شكري عبدي وجبر الصوماليات وحا يجرتا لبي 10 سنة وحا ودك UK قحوتي أهان كسر قشة حدي أنا قدمين around 2 سنة يبر 3 سنة كهر قصة إذن وحا بلاوتي سنة كي لصور دافي 2019 طبعا dad badan ma aysan ogeyn qisada xanuunka badan ee soo wajahday family-ga Shukri Cabdi laakiin sanadkan 2020ga waxa lagu hadalhayaa adduunka caalamka meel kaste waxay chance u yeelatay in adduunku ay wada ogaadaan sheekadan xanuunka badan oo ku dhacday Shukri Cabdi waxa kale oo ka soo hadlay banaanbixi maalmo ta dhacay kadib dad celebrity ah dad caan ah taas ayaana kaliftay in mar kale dib loo mudaharaado maadaama mudaharaadkeedii iyo qeyldaanteedii ay ku ekeed sanadkii hore markii dad aad Soomaali u badan iyo dad ajnabi ah ay boor soo qaateen oo ay ku qoran yihiin justice for Shukri Cabdi laakiin sanadkan mar kale ayaa la soo cusboonaysiiyay insha Allah banaanbax aad u weyn ayaa loo qabtay hadda isla bishan 27deeda waxaana ka dhici doontaa London Hyde Park la yiraahdo insha Allah waxaan rajeynayaa inaan tagi doono oo in la soo socodsiin doono wixii akhbaar ah marka aan idin gudagalo qisada Shukri Cabdi Shukri Cabdi waxa ay ku nooshahay magaalada Manchester waxa ay ka dhigi jirtay halkaas iskuulkaasu waxa ay kala kulmi jirtay dhibaatooyin aad u badan maadaama ay dhigteen dadkii ayada sababsaday oo ahay dad aad dadka u dhiba Englishkuna ay dhahaan dadka bulliga oo dadka mataqaana liido dadka dilo dadka bahdilo dad noocaas ayaa nafta u keenay markasta iskuulka lagu qashaadi jiray waxa dhacday hooyadeed in ay dhimashadeedii ka horba ay ogaatay in dadkaasu ay gabadhan dhibaateeyaan iskuulkii ay kala hadashay meelo badan ay ka sheegtay laakiin wax ka qabto waa la waayay waxa dhacday muddo ka bacdi in galabaha kamid ah in Shukri Cabdi gurigeedii laga wado oo la yiraahdo sida aan warar ku maqlay ma hubo kaalay aan soo wada ciyaarnay ama aan wada baxnay markii iskuulada ay jirin oo kale ama markii galbeey la gaaro oo kale after school waxa dhici karto waxa dhacdo in ilmuhu ay meelaha iskaga ciyaaraan marka iskuulka waxa ku dhawaay meel wabi ah oo biyo ay ku jiraan marka meeshaas ayaan aadayna ayaa la yiri meeshii markii ay tagtay waxa dhacday dadkii la joogay oo ahay 4 cunug 3 ilaa 4 cunug ayada ay 5 ku ahayd ayaa waxa dhacday in markii meeshii ay aadeen nasiib darro ay Shukri soo laaban waydo ilmihii markii ay soo noqdeen waxa la ogaaday Shukri in ay meeshii ku geeriyootay ilmihii kalena ay nabad qabaan baaritaan dheer kadib askartii markii ay baareen ay soo gudbiyeen in Shukri ay biyaha si kadis ah ugu dhimatay sidaasna 10 saac ka bacdi kiiskeeda loo xiray waxa adduunka hadda shock ku riday oo ay la yaabayaan qof dhintay in kiiskiisa 10 saac gudihiisa lagu xiray iyadoo baaritaan lagu sameeyay sidaas markaa ahayd askartu waxa ay sheegeen in ay Shukri dabaal aaday ka bacdi dabaashiina ay sidii biyo ugu harqatay ama ugu dhimatay laakiin waxa la yaab noqotay Shukri Cabdi hooyadeed oo sheegtay in Shukri ay aad biyaha u nacbad wax dabaalan aysan aqoonin dadku isku wada mid ma ahan qofna dabaal ma yaqaan qofna biyo ka cabsada laakiin ayada waxay caan ku ahayd ay leedahay hooyadeeda in ay biyaha aad uga cabsato mararka qaar Soomaaliya markii aan baafa ilmaha loogu qubeeyaa baaf waxa la dhaho oo biyo lagu shubo ka bacdi cunugga la fadhiisiyo ama cunugga tala fadhiisiyo biyo lagu dul shubo midkaas ay ka cabsan jirtay tiri marka arintaano arin saxan ma ahan gabadheedina xaq darra lagu dilay iskama aysan dhiman marka kiiskan hal ay baaro kiiskeedii waa la ignore gareey ka bacdi waa la xiray mudaharaad badan ka bacdi waxa dhacday kiiskeedii in laga gaabiyay ka bacdiina waxa dhacday in la sameeyay petition wax la yiraahdo website oo dadku ay codeynayaan lacag ay bixinayaan dadkaas hadii wax weyn gaaraan ama dad aad u badan ay noqdaan waxa dhacdo in dawladuhu ay ka hadlaan marka taas la sameeyay anigu waa ku jira dadkii saxiixay kulleeto ama lacag bixinay ama waa saxiixay ama qasam ma ahayna lacag bixisay laakiin muhiimadda waxa in xaqib qaadatid waxa dhacday Shukri in kiiskeedii la furay sanadkan bilaawgiisa sanadkii hor dhamaadkiisii waaye laakiin wali xoogaa wax lagu jiro marka baaritaan markii la sameeyay kadib waxa dhacday ciyaalkii magacooda lama ogol in la sheego sharciga wadanka awgiisa laakiin ilmihii waxa loo kala bixiyay child 1 child 2 child 3 child 4 marka ilmihii child 1 child 2 child 3 afartii cunug kamid ayaa wuxuu sheegay in qof kamid ah kooxdii ay ku socdeen uu yiri Shukri
waa ku dilaa haddii aadan biyaha ku boodin calashaan uu waxaa ku jukuleeyey keliya laakiin ilaa hadda aysan jirin wax sax oo la sheego geeridii Shukri waxaa dhacday duugitaankii ka bacdi in waalidkeeda codsadeen in cunugteeda arkaan markii la dhaqaayay intaan la duugin ka hor calashaan in dhaqitaankeedii ama ayadii ay arkaan waxay caddeeyeen Shukri waalidiinteedii iyo adeeradeedba waxay caddeeyeen Shukri korkeeda inuu garaafo lahaay taasna waxay caddeynaysaa in Shukri la jir dilay ama la garaafeeyey tan kaloo la yaab kala waxa ay tahay biyaha ay Shukri ku dhimatay waxaa la sheegay in ay jilbaha ku joogaan calashaan qof dhan aysan laqi karin marka biyo aan qof laqi karin inta ku dhaco kuma dhiman karo haddii markaas aanan lasaan loo tuurin oosan gadaal ugu dhicin maadaama Shukri ay ahaan jirto qof aad u asturan jilbaabkana ay gashan jirto haafka ah waxaa laga yaabaa ay leeyihiin waalidkii ama dadkii qiyaasay in jilbaabkii lagu jiiday oo mataqaana gabadhii mataqaana la xagtay oo la garaafiyay si qasab ahna biyaha loogu riday sidaasna ay ku dhimatay marka hadda markii mudaharaadkii Floyd ninkii madowga lagu dilay Mareykanka in dambiyaal badan oo dadka ajnabiga iyo dadka madowga loo geystay dib loo soo qufay waxaana kamid ah Shukri in arrinteeda dib loo cusboonaysiin lagana hadlo waxaanu egtahay sanadkan mid wax laga qaban doono maadaama kiiskeeda wili uu furan yahay petitionkii website-kii la sameeyay wili codeyntan wili way socdaan linkiga hoos ayaan idin dhigi doonaa insha Allah idinkuna hadii aad awoodaan kaliya gala magaciina galiya iyo informationkiina wax kale oo kara mana hadii aad wadanka Ingiriiska degantihiin waxaan ka codsanaa inaad mudaharaad ka soo qayb gashaan maanta hal qof Soomaali haddaan u doonno berri waxay noqonaysaa qof walba Soomaali oo dhibaato loo geysto ama qof walba Muslim oo dhibaato loo geysto ama qof kasta oo ajnabi oo dhibaato loo geysto in dawladdu ay wax ka qabato il gaar ah lagu fiiriyo waxaan aad uga xumahay waalidka Shukri oo ilaa hadda cadaalad darro ah dadku ilmuhu way ka dhintaan ilmo waa saqiiraan ilmo way leedaan laakiin qofkaaga markii xaq darro lagu diro xaq aad u jeedid kama samaraysid marka waxaan dareemi karaa xanuunka ay ku nooshahay Shukri hooyadeeda iyo aabaheedba qaasatan hooyadeedu aad u jecleed markastana murugo ka muujiso waxaa dhacday barnaamijyo badan inay sameysay oo arrintaas uga hadlayso arday badan iyo kolleejo badan in laga sheegay marka waa qiso aad u xanuun badan qisada Shukri waxaan rajeynayaa inay cadaalad hesho kulleeto ilaa hadda kiiska uu socdaa waa in la soo cusboonaysiin doonaa wixii kale oo cusub ilaa hadda intaasan ogahay kulleeto maxkamadda iyo dhalinyaradaas kulleeto qofkii dilay iyo intaan la dilin iyo kulleeto say wax u wadaan waan arki doonaa marka waan in la soo cusboonaysiin doonaa halkaas ay maraysaa Shukri Cabdi Allah u naxariisto ayaan leenahay maanta qabri ay ku jirta waxa ay gabar 12 sano jirto marka videogeena inuu dheeraado mar rabo marka intaasan ku soo kooba is aragti dambe oo xiiso leh ma salaama